السلام عليكم وسلامتهن ضمان أرضيدا سيدان فيلايو واد هيستان جدولك كورسكا عاونا waxaa inoogu qoran sheeko iyo xigmado insha Allah intaba waan kula wadaagi doonaa haddii aad dhamaysataa cashirkan insha Allah cashirkan ayaan ku saabsan sheeko xiiso badan markaan cashirka dhamaysanana cashirka waxaa qayb ka ah xigmado aan idinkugu soo talagalay caawa balse inta aanan u guda galin cashirka waxaan rabaa inaan ogeysiiyo dhammaan ardayda ma ahan ardaydo idil waa qaar ka mid ah ayaa sameeyay falal aanan ka raali ahayn walaal qaaliya halkan waxaad u imaatay inaad wax ka faa'iideysato waxaad halkan u timaaday in aad ka barato luqadda English-ka intii Ilaahay kaaga anfaco ama intii Ilaahay ka fahamsiiyo kuma dhahayno luqaddo idil ayaad halkan ka baranaysaa balse intii Ilaahay kaaga anfaco ayaad halkan ka baran doontaa insha Allah haddaba maxay yihiin falalkaas aanan raaliga ka ahayn ardayda qaar ka mid ah ayaa casharada u sheer gareeya dad aanan ka tirsanayn ardayda iska diiwaan gelisay way arag media haddaba walaal kama raalinihin inagu waa hebel iyo hebel ma dhahayno maxaa yeelay qalab lagu ogaado ma haysano laakiin waxaad ogaataa haddaanan annagu ku jeedin waxa ku jeedo Allah subhanahu wa ta'ala marka walaal qaaliya stop what you are doing jooji waxaad samaynayso qofkii cashar dambe sheer gareeyo walaal qofkaas anagu hadda waxba kuma oranayno balse qofkaas Allah ayaa u jeedo walaal ha sheer gareynin ama ha forward gareynin casharada ku jira halkan waxaan ugu talagalnay ardayda iska diiwaan gelisay way arag media koorskan inay qaataan marka waxaan filayaa inaad fulin doontaan codsigaas aan idin soo jeedinay cashirkaas cidnaha la wadaagan walaal taleefankaaga familkaagu way ka akhrisan karaan taleefankaaga balse inaad cashirkii aad qof kale forward dhahdo that is big mistake waa khalad weyn oo aad sameynaysid waa mahadsantiin inoo bilaabo marka sheekadayna markaan sheekada dhamaysanana waxaan guda gelinaa qaybta xigmadaha sheekadana waxay u dhacaysaa sida tan sheekadan waxaa ciwaan looga dhigay helping inaad caawiso others kuwa kale waa macnaha dadka kale once there was a small boy named Shankar and once there waxaa jiray a small boy wiil yar oo named lagu magacaabi jiray Shankar ayaa la dhihi jiray wiilka he belonged to a poor family wuxuu hoostagi jiray ama uu ka dhashay to a poor family qoys poor ah ama faqiirin ah ama aan waxba haysan oo iska sabool ah one day maalin he was crossing through isagoo jarayo ama ka gudbayo the forest kaynta carrying some woods wuxuuna waday erga carrying waa wax aad sidid aad xambaarsan tahay aad qaadaysid isagoo qaadayay some woods xoogaa qoryo ah woods waa alwaaxman qoryaha alwaaxmanka camal ah ayaa la yiraahdaa woods isagoo qoryahaas wado he saw wuxuu arkay an old man oday duq ah who was very hungry kaasoo aad u gaajaysnaa wiilka Shankar la dhahayay wanted wuxuu doonayay to give him inuu siiyo some food xoogaa cunto ah but laakiin he did not have food for his own isaguba ma haysanin cunto ma haysanin and he did not have food ma uusan haysanin cunto for his own isagu uu leeyahay so sidaa darteed he continued wuxuu sii watay on his way wadadiisa ayuu sii watay oo waa uu iska sii socday wiilkii maadaama uusan odagan waxba u qaban karin marka on his way wadadiisii haddana wadadiisa asigoo ku sii joogo on his way wadadiisa asigoo ku sii socdo he saw wuxuu arkay a deero ayuu arkay deero waxa la yiraahdaa aniga af-Somali uma kasay deero ayaan u aqaanaa who was very thirsty erga deero hadaad ku qortid Google sawirkiisa wuu ku soo baxaya deer hadaad ku qortid Google who was very thirsty kaasoo aad u oona erga thirsty waa on ama haraad he wanted marka wuxuu doonay to give him inuu siiyo deerada some water xoogaa biyo ah but laakiin he did not have ma uusan haynin water biyo for himself nafsidiisa biyo uma uusan haynin
So sidaa darteed he went on his way, wuxuu sii aaday wadadiisa ahead, horay ayuu wadadiisa ugu sii socday. Then he saw, kadib wuxuu arkay a man, oday, who wanted, kaasoo rabay to make inuu samaysto a camp, bush ama cooshad yar oo uu ku hoydo. Erga camp waxaa la yidhahdaa meel cooshashka buushashka yariska la yidhahdaa. But laakiin he did not have woodies, but laakiin he did not have, ma uusan haysan woodies, qoryihii uu ku dhisa lahaa bushka ma uusan haysanin. Wiilkana wuxuu wadaa qoryihii uu soo qaatay. Haddaba muxuu sameeyey? Inagee beedka xiga. Shankar asked his problem. Shankar wiilkii la dhahayay ayaa asked wuxuu weydiiyey odagii his problem, dhibaatadii haysay. And gave, wuxuuna siiyey some woodies, xoogaa qoryo ah, to him, odagii ayuu siiyey, to him isagay ayuu siiyey. In a return, marka ritaan ahaan qoryaha markuu siiyey odagu bedel wuxuu uga dhigay, he gave him, wuxuu siiyey some food and water. Odagii markii qoryihii la siiyey asna wuxuu wiilkii siiyey xoogaa food ah and water iyo xoogaa biyo ah. Now hadda he went back, wuxuu dib ugu laabtay to old man, odagii duq ahaa, and gave him, wuxuuna siiyey some food, xoogaa cunno ah, and gave, haddana wuxuu siiyey some water, xoogaa biyo ah, to the deer, deeradii. The old man, odagii duq ahaa, and the deer iyo deeradii were very happy. Aad ay u farxeen, aad ay u faraxsanaayeen. Shankar wiilkii la dhahayay, then kadib happily, si farxad leh ayuu went on his way, u aaday wadadiisii. However, si kastaba ha ahaatee, one day, maalin, wiilkii Shankar la dhahaya fell down, wuxuu ka dhacay the hill, bur ayuu ka soo dhacay. He was in pain, wuuna xanuunsanayay, but laakiin he could not move, ma uusan dhaqaaqi karin, and no one, cidna, was there to help him, ma aysan joogin halkaa si u caawiso, cidna halkaa ma aysan ahayn si u caawiso. But laakiin the old man, odagii duqa ahaa, who had helped, kaasoo uu u caawiyey before, horay, kaasoo odagii uu hore u caawiyey ayaa saw him arkay. He quickly came, si dhaqso ah ayuu ugu yimiday, and bullet, wuxuuna ka riixay him up, kor ayuu usoo riixay ama usoo jiiday the hill, buurtii oo wiilka ka soo dhacay ayuu maartay kor ugu soo jiiday wiilkii oo caawinaad ayuu u fidiyey. Haddaba kadib maxaa dhacay? Haddaba wiilku he had many wounds, wuxuu lahaa dhaawacyo fara badan. Erga wounds waa nabarrada ama dhaawacyada ka soo gaaro meelaha jirkaada ka mid ah. On his legs, lugihiisa korkooda, lugihiisa waxay lahaayeen nabarro iyo dhaawacmo oo markii uu meesha ka soo dhacay soo gaaray. The deeradii, whom, taasoo wiilka Shankar la dhahayo, had gave water, uu biyo siiyey, deeradii uu biyaha siinayay ayaa soo waxay aragtay his wounds, nabarradiisa ama dhaawacyadiisa, and quickly went, waxayna si dhaqso ah u aaday. Erga quickly waa si dhaqso ah, to the forest, kaynta, and brought, waxayna u keentay some herbs. Erga herbs waxa waaye geedaha yaryarka ah, maqaarkooda, geedka maqaarka laga soo fiiqo, meerax ay u yaqaanin ama xaskul Soomaalida qaar kamid ah ayay u keentay marka. And brought, waxayna u keentay some herbs, xoogaa geedaha yaryarka ah maqaarkooda. After some time, xoogaa kadib, his wounds, nabarradiisina were covered, way daboolmeen oo way kabsadeen. All were very happy, dhammaantoodna waa ay farxeen. That they were able, taasoo they were able, ay ku awoodeen waxyaabahaasoo dhan, farxaddaas dhan waxay ku heleen. They were able, waxay awoodeen to help each other, inay caawiyaan midba midka kale. Moral of the story, dulucda sheekada. If you help others, haddii aad caawiso kuwa kale, then they will also help you, kadib iyana way ku caawin doonaan adiga. Haddii aad maanta qof aad caawisid oo aad abaal u gashid, ogsoonow qofkaasu isna wuu ku caawin doonaa maalin maalmaha ka mid ah. Thank you, waa mahadsantiin. Maadaama uu video ugu dheeraaday, video kale ayaan ka samaynayaa oraahyaha iyo xigmadaha isla hadda ayaana soo gelinayaa. Thank you.